baabuur tiro badan ayaa saf ugu jirta goob shidaalka laga qaato. waxaa laga yaabaa in ay 3 maalmood halkan sii joogaan ayaga oo saf ugu jira in ay baabuurtooda shidaal u helaan. dadku baabuurtooda ay halkan dhigtaan oo safka geliyaan wayna ka tagaan iyaga oo u soo laabta maalintii xigta. waa wadanka sidaas loogu dhiban yahay. Venezuela wadanka leh kaydka shidaal ee ugu badan caalamka. laakiin maxay tahay sababta isla wadankan shidaalka safka loogu jiro? maaragta cadadka intaas la eg ee lacagta kaashka ah waa in ka badan 80 milyan oo lacagta bolivares oo ah lacagta laga isticmaalo gudaha Venezuela. marka aad ugu baahato in aad shay yar suuqa ka soo iibsatid waxaad ku qasban tahay in aad kiish lacag ah hore u sii qaadatid qiimo dhaca lacagta Venezuela darteed. koobka shaaha ama kubishiinka waxa la iibiyaa 2 milyan oo lacagta bolivares ah. dawladooda ayaa soo daabacday lacag xaashi ah oo aad u tiro badan. qof kasta lacag badan ayaa u gacan gashay kadibna lacagtii ayaa sidaas ku qiimo dhacday. dalkani waxa uu la daalaa dhacayaa sicir bararka ugu xun marka caalamka oo dhan loo eego, xitaa in ka badan inta wadanka Zimbabwe uu sicir bararka ku jiro. laakiin arinta ugu murugada badani waxa ay tahay Soomaaliya ayaa hadda jidkaas soo haysa haddii aan wax laga qaban qiimo dhaca shilinka Soomaaliga. marka la joogo Venezuela ATM-yada waxa laga bixi karaa toddobaadkii oo dhan $1 ugu badnaan bishii $4 oo kaliya. sababtu wax kale ma aha. ATM-ka waxa lagu shubaa lacagta gudaha oo bolivar la yiraahdo. qofku marka uu u baahdo in uu la baxo qiimo la eg $1 waxa uu dalban karaa sarifka lacagta gudaha. halkii $na sarifkiisu waa 4,080,269 bolivar. waa lacag hal jawaan in lagu qaato ah. sidaas darteed ATM-ka lacagta intaas ka badan lagalama bixi karo. kaaga daran lacagta intaas la eg kaliya waxa ay goysaa 2 koob oo shaah ah oo laga cabo maqaayadaha iska herdhaxaadka ah. waxa laga yaabaa in arintan ay kula noqoto mid ka badbadis ah. sidoo kale waxa dhici karta in aad isweydiinayso sidee dalkan noocaas ah loogu nool yahay oo nolol maalmeedku uu ku kala socdaa. dokumentarigan ayaad ku ogaanaysaa ee nala soco. Venezuela waxa soo martay dhibaatadii ugu xumayd ee dawlad caalamkan ku taala soo marta. mar waxay u muuqatay in ay tahay dawladda ugu hodansan uguna ilbaxsan gobolka ee ku taala ee koonfurta Latin America. laakiin hadda xaaladdu way isbedeshay. magaalada Caracas oo ah caasimadda dalka waa meesha ugu amniga xun caalamka. waa magaalada hogaaminaysa liiska falal dambiyada caalamka. magaalada Caracas waxa ku taala degmo dhan oo uusan marnaba boolisku gali karin. kaliya tuugada iyo kooxaha mooryaanta ah ayaa maamula. waa degmada lagu magacaabo Batera. waa degmo isku raran ah ama obasiiba ah. degmadaasi kaliya waxa ay ka halis amni badan tahay wadamada Brazil iyo Mexico. marka la joogo Venezuela dadku kama joogsadaan layrarka cas ee samaafaraha. booliskuna wax ganaax ah uma jiro baabuurtu marka ay gudubto. badana afduubyada iyo falal dambiyada kale waxa ay dhacaan marka ay baabuurtu ka joogsato layrka gaduudan. sidaas darteed cidna ma istaagto. caalamka sidaan u ballaaran 4 dawladood oo kaliya ayaa u safri kara Venezuela. waa dawladda haysata kaydka shidaal ee ugu badan. haddana nasiib darro wax shidaal ah ma soo saarto. waxay haysataa in ka badan inta ay haystaan dawladaha Sacuudiga, Ruushka, Canada iyo Ciraaq. bal suurayso haddana dadka dawladdan ku abtirsada waxa ay saf dheer maalmo ugu jiraan in ay 20 litir oo shidaal ah u helaan baabuurtooda. Venezuela waxa ku dhaqan 100,000 oo muslimiin ah kuwaasi oo badankood asal ahaan ka soo jeeda dawladaha Carabta. waxa ay ka yihiin minority ama dad laga tiro badan yahay. waxa ay guud ahaan tirada dadka Venezuela ka noqonayaan wax ka yar 0.4%. Venezuela halkii ay kor u socon lahayd oo ay kobac samayn lahayd
hal mar ayay kor ka soo hoobatay oo sagxadda timid mar kale ayay hadda isku dayaysaa in ay sare kacdo. waddankan 20 sano ka hor waxa uu ahaa waddanka ugu kobaca xooggan qaaradda Latin America. waxa ay ku noolaayeen baraare iyo barwaaqo meel kasta oo dalka ah ku baahsan. waxaa jirtay rajo ahayd in shidaalka dalka ku kaydsan la soo saari doono. ayada oo xaaladdu ay iska wanaagsan tahay ayaa sanadkii 1998 waxaa talada dalka qabtay Hugo Chavez. doorashada Hugo Chavez waxa ay ahayd dhamaadka rajadii shidaal soo saarista. waxaa libdhay ganacsiyadii gaarka loo lahaa. dhammaan ganacsiyadii gaarka loo lahaa waxaa la wareegtay dawladda Hugo Chavez. wuxuu amray in hantidii gaarka ahayd la qarameeyo. ujeedku waxa uu ahaa si uu u kasbado dadka saboolka ah. xilligii ololaha doorashadiisa ayuu u ballan qaaday in dadka hantida leh uu ka qaadi doono hantidooda isla markaana uu u qaybin doono kuwa saboolka ah. maadaama dadka Venezuela intooda badan ay sabool yihiin, wuxuu helay codadkii ugu badnaa, sidaas ayuuna madaxweyne ku noqday. Hugo Chavez waxa uu dadka saboolka u sheegay dhabka ma ahayn, kaliya dareenkooda ayuu ku ciyaarayay. kursi ayuu ku raadsanayay. khudbadiisii ugu horeysay kadib waxaa bilowday in falalkii amni xumada ay kor u kacaan. sababtoo ah dadkii saboolka ahaa ayaa dagaal iyo ugaarsi ku bilaabay kuwii hantilayaasha ahaa. sabab la xiriirta khudbadii uu jeediyay oo uu ku weeraray dadka hantida leh. Hugo Chavez oo geeriyooday sanadkii 2013 wuxuu ahaa nin aftahan ah, codkar dadka hadal ku qancin kara. kartidaasi khaaska ah ayuu ku hoday dadkiisa uguna faa'iideysto in uu xilka iska haysto ilaa dhimashadiisa. 2013 markii uu geeriyooday waxaa xilka madaxweynaha loo doortay Nicolas Maduro. isla markii la doortayba waxaa hoos u dhacay qiimihii saliidda maadaama dawladdu ay ku tiirsanayd saliidda. shaqooyinkii dawladana hoos ayay u dhaceen. sanadkii 2017 adeegii korontada ayaa dalka oo dhan laga jaray. nalalkii samaafaraha oo markii horeba tilmaamahoodii aan loo hoggaansami jirin way dameen. waxaa la xiray xarumihii tareenada. caasimadda Caracas iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa mugdi wada noqday. muddo hal bil ka badan oo xiriir ah ayaa dalka oo dhan uu mugdigaasi ahaa. shaqooyinka badankood way joogsadeen. noloshu ciriiri ayay noqotay. wax walba waxa ay u muuqdeen in ay bartoodii ku joogsadeen sababtoo ah dalku wax dab koronto ah ma lahayn. hadda waxoogaa ah waxay u eg tahay in ay ka roon yihiin sidii ay ahaayeen 2017 iyo 2018. maxaa yeelay adeegii korontada ayaa dib loo helay. qaaliba ha iska ahaato adeega qiimaha lagu heli karo. Te lo había comentado porque no quería humillarte. Basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa. lacagta dalku leeyahay ee la yiraahdo Bolivar wax qiimo ah ma laha. haddii aad ka walwalsanayd shilinka Soomaaliga oo ku bilowdo 1000, halkan waxaa daabacan lacag ay ku qoran tahay 1 milyan. haddii waa 1 bilyan oo lacag xaashi ah. bangiyada gudaha badankood way musallafeen. cidna lacag ma dhigato. kan dawladda ayaa qasab ku shaqaynaya. halkii marna adeega ATM-ka waxaa lagala bixi karaa ugu badnaan 4 milyan oo kaliya, taasoo u dhiganta $1 oo kaliya. bal qiyaas, mararka qaar ayaa laga yaabaa in lacag 2 milyan ka badan ATM-ka laga waayo. markaasna waxa aad ku qasban tahay in aad $0 kaliya kala baxdid. dadka badankood waxa ay jeebka ku wataan ama guryaha u yaala lacago dollar ah oo $1 u sarifan. badankood waxa ay ku xiran yihiin bangiyo Mareykanka ku yaala oo ay ku isticmaalaan application lagu magacaabo Zelle. dhammaan goobaha ganacsiyada sida maqaayadaha, supermarketyada iyo xarumaha kale ee laga adeegto waxaa lacagaha loogu tuuraa adeegaasi Zelle oo ku xiran akoonada bangiyo ku yaala waddanka Mareykanka. lacagaha dollarka ee kaashka ah waxaa dalka lagu keenaa si suuq madow ah. rag iska dhiga sariflayaal caalami ah oo lacagaha qalaad isku bedela ayaa soo qaada oo dalka keena. goobaha ganacsigu waxa ay aad muhiim u arkaan in ay qabtaan lacagta $1 ah. sababtoo ah markasta oo wax laga iibsado waxaa suurtagal ah in baaqi celin looga baahdo. sidaas ayay ugu jecel yihiin in ay qabtaan lacagta $1 ah. tusaale, qof ayaa ku adeeganaya $4, wuxuuna bixinayaa $5 oo isku dhegan. waxaa markaasi qasab ah in ay u celiyaan baaqiisa oo ah $1. heerka faldambiyeedyadu aad ayuu u sareeyaa. amni daridu waa mid aad u baahsan. dadku kama baqayaan in wax laga xado ama laga jeebsiibo oo kaliya, balse waxay si joogto ah uga walwalaan afduubka iyo dhaca bareerka ah. magaalada Caracas oo ah caasimadda waddanka waa mid macno badan. waxaa ku wada nool dad kala dabaqad ah xagga nolosha.
meelaha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ayaa ugu daran xagga falal dembiyada sida dilka, dhaca, afduubka iyo kufsiga. dadka reer Venezuela waxa ay aad u xusaan oo ixtiraam taariikhi ahna u hayaan halgamaagoodii weynaa Simon Bolivar. waa ninka ay xitaa lacagtoodii ugu magac dareen. waa ninka ugu saameynta xoogan gobolka oo dhan, kaliya maaha Venezuela, xitaa wadamada kale ee deriska la ah sida Colombia iyo Peru. wuxuu ahaa haliyey gobolka ay wadamadaas ku yaalaan ka xoreeyay gumeystihii Isbaanishka. mararka qaar xitaa wadanka waxaa loogu yeeraa Jamhuuriyadda Bolivarianka Venezuela. ninkaasi waxa uu ku geeriyooday wadanka Colombia, laakiin waxa meydkiisa loo soo qaaday oo lagu aasay Venezuela ixtiraam iyo qadarin ay u hayaan halgamaagooda dartiisa. magaca Venezuela asal ahaan waxa uu ka yimid ereyga Venza oo af Talyaani ah. Venezuela waxa soo maray waayo aad u wacnaa iyo nolol baraare ku dhisan. waxaa jirtay waqti Yurub laga soo hayaami jiray oo Venezuela nolol loo soo raadsan jiray. wadamo badan oo Carab iyo Afrikaan ah ayaa xilligii ay ku jireen halgankoodii xornimo doonka waxay taageero ka soo raadsan jireen dawladda Venezuela. laakiin doorashadii la doortay Hugo Chavez waxa ay dalkaasi u horseeday burbur iyo mugdi xoog badan. waxa isku hor yimid shacabkii kuwii ku jiray nolosha dabaqadaha hoose waxa ay colaad u qaadeen kuwa dabaqadaha sare ee nolosha ku jiray. dadkii ganacsiyada iyo hantiyada gaarka ah haystay ayaa dawladdu ay qasab uga qaaday. hoteelo, shirkado ganacsi, xitaa kuwa waxbarashada ayay dawladdu la wareegtay. maamul xumo ay ku kaceen hogaamiyaasha dawladda ayaa dalkoodii u horseeday burbur iyo dhaqaale xumo baahsan. dawladda Mareykanka ayaa iyana door lixaad leh ka qaadatay burburkaasi. madaxda Mareykanka ayaa iyagoo iska dhigaya in ay saaxiibo wanaagsan leeyihiin waxa ay maleegeen qorshayaal wax u dhimaya dawladnimada dalkaas iyaga oo ka aargudanaya xiriirka ay Venezuela la yeelatay Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha dartiis. 2017 waxaa aad loo baahiyay shacabka Venezuela oo aan salaato kaliya cunaya oo nolol ka dhigtay iyo qaar qashin qubka cunto reereeb ah ka gurubsanaya. sababta ay waxa soo dhacayeen waxay ahayd dawladda ayaa xadiday sicirka maciishada dibadda laga soo dhoofin jiray. canshuur xad dhaaf ahna waa la saaray sidaas oo ay tahayna maciishada oo dhan dibadda ayay uga imaanaysay. go'aankaasi ay dawladdu soo saartay kadib dadkii badeecada dibadda ka soo dhoofin jiray way joojiyeen ganacsigoodii si aysan khasaare u gelin. noloshii ayaa isxirxirtay, culays hor leh ayaa abuurmay. dawladdu waxa ay lacag la'aan ka dhigtay adeegyada iyo maciishada badankeed. tusaale, tareenku waa lacag la'aan, shidaalku waa lacag la'aan, qutul duruuriga qaarkiis waa lacag la'aan. haddana sidaas oo ay tahay waxaa si lacag la'aanta ah dadka kuma wada filna. taas darteed waa in safaf dhaadheer ay u galaan oo ay silic badan u maraan. maadaama hantidii la qarameeyay oo dawladdu ay qasab kula wareegtay waxaa dayacmay tayadii iyo horumarintii adeegyada. wax walba waxa ay noqdeen jaantaarogan. dadku sidii ay doonaan ay ugu tagrifalaan. dadka dawladdu u shaqeeya qaarkood waxa ay mushaar ahaan u qaataan 12 milyan oo bolivar ah. haddii la sarifo lacagtaas waa $3 oo kaliya bishii oo dhan. bal qiyaas sidee dareenkaagu noqon lahaa haddii adiga oo bil dhan shaqeeyay mushaar ahaan lagu siiyo $3 oo kaliya. intii u dhaxaysay 2017 iyo 2019 in ka badan 5 milyan oo ruux ayaa dalka ka haajirtay, kuwaasi oo nolol u raadsaday wadamada deriska sida Colombia. laakiin hadda waxa ay bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan sababtoo ah waxa ay u egtahay in xaaladdu ay ka soo roonaanayso sidii ay ahayd 3 sano ka hor. dawladdu waxa ay wadaa dadaalo lagu soo daabacayo lacago cusub oo eberta ku qoran ay ka yar tahay midda hadda u daabacan oo qaarkeed ah trillion hal xaashi ka samaysan. in ka badan 150 baabuur ayaa dhowr maalmood saf ugu jirta in ay helaan shidaal. bal qiyaas dawladda haysata kaydka ugu badan ee shidaalka adduunka ayaa dadkeedu la'yahay shidaal ay baabuurtu ku shubtaan. shidaalka safka loo galo waxaa laga soo dhoofiyaa waddanka Iiraan. haddii aan Soomaalinahay sheekada Venezuela maxayna baraysaa? ma kula tahay in ay jiraan waxyaabo aan isaga egnahay annaga oo Soomaali ah iyo Venezuela oo maanta mawduuceenu ku saabsanaa? fadlan aragtidaada nala wadaag.